asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhowaada wararkii u dambeeyey ee dagaalka magaalada boosaaso ayaa waaga ugu bariyey sawaxanka rasaasta ka dhacaysay hubka culus waxaana meesha ka baxday xabad joojinta ay shalay ku baaqeen maamulka puntland waxaana dagaalkan oo uu socday muddo saacada ah ayaa iskiis u istaagay abaarihii 7 subaxnimo ee saakay abaarihii 11:45 daqiiqo ee habeennimadii xalay ayaa waxaa bilowday dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo kuwa BSF ee daacad u ah General Maxamuud Cismaan Diyaano wuxuuna dagaalkaasi iskiisa u istaagay 7 subaxnimo ee saakay dagaalkan ayaa u muuqday mid ka xoog weynaa dagaaladii hore u dhacayay waxaana labada dhinac ay isu adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay heli kareen daryaanka iyo sawaxanka madaafiicda iyo rasaasta ayaa xalay oo dhan laga maqlayay gudaha magaalada Boosaaso hurdadana u diiday dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso wararka aynu ka helayno goobihii lagu dagaalamayay ayaa sheegaya in ay jiraan dhimasho iyo dhaawac hor leh oo loo daadguraynayo goobaha caafimaadka Boosaaso waxaana tirada dhimashada maraysa 19 qof iyo ku dhawaad 80 qof oo dhaawac ah oo isugu jira askar iyo shacab sida ay VOA u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka ee Boosaaso dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa qaarkood waxa ay soo wajahday barakac hor leh iyadoo xaafadaha magaalada qaybo kamid ah ay sheegayaan inay ka go'een biyihii iyo korontadii waxaana jira hoobiyaal ku dhacay guryo kamid ah xaafadaha Boosaaso oo ay dadku dhinteen dhinaca kale qoraal maanta ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland ayaa lagu eedeeyay in General Maxamuud Cismaan Diyaano uu hurinayo colaadda ka aloosan magaalada Boosaaso balse waxaa dhinaca kale lagu sheegay in dowladda Puntland ay waqti siinayso dadaalada loogu jiro sugidda nabadgelyada iyo si nabad ah in ay ku qabsoonto xil wareejinta madaxweynaha Puntland oo ugu magacaabay agaasimaha hay'adda BSF sareeyo guuta Amiin Xaaji Khayr sidoo kale qoraal ka soo baxay dhinaca ciidamada BSF-ka waxa ay eedeyn ugu jeediyeen xubnaha ka tirsan golaha wasiirada Puntland ee ku sugan Boosaaso inay sii hurinayaan colaadda iyo barakacinta shacabka qoraalka BSF ayaa lagu sheegay inay ku sugan yihiin xaruntoodii ayna isdifaacayaan shalay ayay ahayd markii wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan oo ku baaqay in xabadda la joojiyo waxaana jiray isma iyo waxgarad kale oo dhexda u xirtay inay joojiyaan dagaal dambe oo ka dhaca magaalada waxaana mar kale ay Puntland ay sheegtay in wadahadallada nabaddu ay sii socdaan barakac xoogan oo ka socda Boosaaso dadkii ugu badnaa ayaa waxa ay weli ka barakacayaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo maalintii saddexaad oo xiriir ah ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo kuwa taageersan agaasimihii xilka laga qaaday ee BSF waxaa magaalada Boosaaso iyo daafaheeda lagu arkayaa dad barakacaya kuwaas oo gaadiid wata halka kuwa aan awoodin ay lugeynayaan si ay uga badbaadaan inay waxyeello ka soo gaarto dagaalka waxaa fashilantay xabad joojin ay shalay galinkii dambe ay aqbaleen labada dhinac ee Puntland iyo BSF iyadoo xalay xilli dambe oo dagaal culus ka dhacay magaalada Boosaaso dadka barakacaya ayaa muujinaya walaac ku aadan in dagaalku uu sii xoogaysto waxaana jiray inay hore dad fara badan ay ugu barakaceen magaalada Boosaaso madaxtooyada Puntland oo war ka soo saartay dagaalka Boosaaso madaxtooyada Puntland ayaa war qoraal ay ka soo saartay dagaalka ka socda magaalada Boosaaso iyagoo ka eedeeyay in agaasimihii xilka laga qaaday ee BSF inuu horinayo colaadda magaalada Boosaaso dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxaa mar walba ka go'an ilaalinta dowladnimada ku dhisan sareynta sharciga dowladda Puntland waxay cadeynaysaa in agaasimihii hore ee BSF uu hurinayo colaadda ka dhacda magaalada Boosaaso isagoo aan si kala sooc lahayn magaalada ugu duqeynayo hoobiyaal kamid ah hantida BSF ee laga sugayo inuu xilkeeda wareejiyo ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale madaxtooyada Puntland ayaa sheegtay in si loo dhiirigeliyo sidii xal nabadeed looga dhameyn lahaa xaaladda xil wareejinta mas'uuliyadda iyo hantida BSF inay waqti siinayso dadaalada loogu jiro inay si nabad ah lagu dhameeyo xaaladda Boosaaso ayna qaadanayaan tallaabooyin lagu fududeynayo dadaalada socda warkan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa ku soo beegmayay xilli shalay wasiirka amniga maamulkaasi uu sheegay inay diyaar u yihiin wada hadal iyo xabad joojin balse mar kale uu xalay dib u qarxay dagaalka BSF oo ku dhawaaqday inay burburtay heshiiskii xabad joojinta war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada difaaca ee Puntland ee BSF ayaa waxaa lagu sheegay inay bulsho weynta guud ahaan ee Puntland iyo Soomaali weynba ay la garowsan yihiin gardarrada iyo mas'uuliyad darrada haysata maamulka Puntland oo aan lahayn cid si mas'uuliyad leh oo lagula xisaabtami karo arrimaha quseeya masiirka dalka mas'uuliyadda shacabka oo ay talada ka go'i karto qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhinaca kale ee ka soo horjeeda madaxweynaha Puntland ay burburiyeen ballantii iyo cahdigii ugu dambeeyay ee shalay xabad joojinta ay la galeen isimadii
culimadii iyo waxgaradkii kale. Africom oo war ka soo saartay dagaalka Boosaaso. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa ka hadlay dagaalka ka socda Boosaaso ee u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo kuwa BSF. Taliska Africom ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin colaadda Boosaaso isla markaana uu sababi karo inay fursad ka helaan argagixisada. BSF waa ciidanka ugu awoodda badan ee Puntland u jooga la dagaalanka argagixisada. Waxaan ka walaacsanahay inay iska horimaadyadani ay hoos u dhigaan awoodda BSF iyo in kooxaha argagixisada ah ay fursad u helaan inay ka faa'iideystaan ayaa lagu yiri warka BSF. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa taageero dhaqaale iyo mid military waxa uu siiyaa ciidamada BSF kuwaasi oo loogu talagalay inay la dagaalamaan Al-Shabaab iyo Daacish. Ugu dambeyntiina, laamaha amniga ee magaalada Jowhar oo howlgal ku qabtay waxyaabaha maanka dooriya. Ciidamada kala duwan ee ammaanka ee ka howlgala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa mar kale waxaa howlgalla ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada Jowhar. Howlgalka oo ay harkacayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa ciidamada waxa ay ku bartilmaameedsadeen guryo gaar ahaan waxaana laga soo qabtay waxyaabaha maanka dooriya oo u badan xashiish. Taliyaha saldhigga booliska magaalada Jowhar Gaashaanle Dhexe Bashiir Xasan Xaloofi ayaa sheegay in maandooriyaha ay ciidamada gacanta ku dhigeen ay ahaayeen kuwo ummadda lagu dhibaateynayay, wuxuuna ugu mahadceliyay ciidamada kala duwan ee ku guuleystay inay soo qabtaan. Gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Maxamuud Mukhtaar Baarey ayaa dhankiisa sheegay inay nasiib darro tahay in dalagyadii lagu beeri jiray beeraha lagu bedelay waxyaabaha maanka dooriya gaar ahaan xashiishka, taasina ay ka soo horjeedaan haddii ay yihiin maamulka magaalada Jowhar. Maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa magaalada Jowhar ka socday howlgallo looga hortagayo ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya, waxaana ciidamada ay qabteen qamri iyo xashiish fara badan iyo dadkii ka ganacsanayay.